Assalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada YouTube channelkeena hadaad ku cusubtihiin fadlan subscribe noo dhaha like iyo share nagu dhiirigeliya. Maxaad ka taqaanaa Bob Marley rabarkii caanka ahaa ee Bob Marley oo hadda dib ugu qarxay heestiisa aaladda TikTok. Bob Marley waxa uu ahaa rabar caan ah oo dunidu fankiisu gaaray gaar ahaan heesaha reegiga. Asiga ayaa qoran jiray ereyada uu ku heesaa laxanka iyo muusiga asiga ayaa saaran jiray. Waxa uu ku heesi jiray ereyo soo jiidasho leh oo uu ku taageeri jiray dadka madowga ah ee Ameerika lagu midabta kooro. Bob Marley waxa uu ku dhashay dalka Jamaica ee dhaca qaaradda Latin America sanadii 1945. Bob Marley waxa uu yaraantiisii jeclaa muusikada taas oo sababtay markii dambe inuu fanaan caan ah noqdo. Marley waxa uu tagay dalka Mareykanka waxa uuna kala kulmay dhibaatooyin sababay inuu dalkiisa dib ugu soo noqdo. Bob Marley markuu dalkiisa dib ugu soo noqday waxa uu qaatay diinta Rastafarianka oo aaminsan caqiidada ah asalka aadanaha iyo meesha wax walba ay ka yimideen inay tahay Afrika. Diinta ay aaminsan yihiin Afrikaan xag jir ah oo been abuur ah. Ugu dambeyntii Bob Marley markii uu dunidu fankiisu qabsaday waxa isku dayay caanimadiisa inay ka faa'iideystaan qolyaha mansuuriyiinta ee shaydaanka caabuda si ay fikradooda u dhaxmarsiistaan balse taas bedelkeeda waa uu ka diiday oo ayagii ayuu toosh ku ifiyay. Intaas kadib waxa ay qorsheeyeen inay qaarijiyaan ayaga oo adeegsanaya FBI-da Mareykanka. Sargaal ka tirsan FBI-da Mareykanka oo iska dhigaya wariye u shaqeeya wargeyska New York Times ayaa Bob Marley ka codsaday inuu wareysi la yeesho sanadii 1970 asiga oo ku sugan London cariga dalka Ingiriiska. Wareysigii Bob Marley uu ka aqbalay waxa uu sheegay wariyihii sargaalkii ka tirsanaa FBI-da Mareykanka ee iska dhigayay wariye u shaqeeya wargeyska New York Times inuu hadiyad ugu wado wargeyska, hadiyadaasna ay tahay kaba sports ah oo qaali ah. Bob Marley wuxuu qaatay hadiyadii isla markii uu isku tijaabiyay. Waxa Bob Marley ka muday cirbad sun ah oo ku diyaarsaneyd kabahaas gudaheeda taas oo sababtay inuu qaado fayraska kansarka. Bob Marley 4 sano kadib sanadii 1981 ayuu u geeriyooday fayraskii lagu tallaalay ee kansarka ahaa. Bob Marley ayaa laga codsaday in laga jaro lugtiisa maadaama uu fayraska markii hore uu ku koobnaa lugtiisa kansarka ah. Bob Marley ayaa diiday oo dhahay waxaan aaminsanahay diinta Rastafarianka, diintaasna ma ogola in jirkayga qayb kamid ah la jaro xitaa timahayga. halkaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa taariikhdii Bob Marley. haddii aad jeceshahay taariikho kale inaan ka soo hadalno insha Allah waxaad nagu la wadaagi kartaa commentiga, like iyo share na waad nagu dhiirigelin kartaa insha Allah. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.